السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhowaada daawadayaal, waa mar kale isku soo noqod wanaagsan. ma og tahay daawade in saxaabadii nebiga naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee in ay ka mid ahaayeen kuwo jinni ah oo rumeeyey risaaladii nebi Muxamed naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee. sidaa daraaddeed waxaynu muuqaalkeena ku soo qaadan doonnaa saxaabi ka mida saxaabadii jinka ahaa oo magiciisa la odhan jiray Camar ibnu Jaabir al-Jinni radiyallaahu canhu. haddii aad nagu cusub tahay daawade, gambaleelka furo si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub. fiidiyogana like saar, saxaabtaadana u sheergaray. saxaabadii nebiga naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee waxay gaarayeen 114,000 oo saxaabi oo insi ah. sidoo kale waxaa jiray saxaabo kale oo jinni ah. waxaa laga wariyaa Safwaan ibnu Muctil radiyallaahu canhu inuu yidhi, waxaynu u baxnay aniga iyo 2 kale oo ka mida saxaabadii nebiga in aan soo xajinno. markaynu maraynay meel lagu magacaabo al-Ciraj, waxaynu aragnay dabeel weyn oo xooggan. kadibna waxaynu aragnay dabeel kale oo ka sii weyn. waxaa ka soo baxay dabeeshii mas neeftuuraya oo sakaraad taagan. wax yar ma nagaanin oo wuu dhintay. kadibna mid naga mida ayaa duugay. markaynu gaarnay magaaladii Makka, qof baa wuxuu inagu yidhi, yaa duugay Camar ibnu Jaabir? waxaynu nidhi, ma garanayno Camar ibnu Jaabir. wuxuu yidhi qofkii, Camar ibnu Jaabir waa maskii aad duugteen. ilaahay ha idinka abaalmariyee. waxaana isdagaalay jinkii mu'miniinta ahaa iyo kuwii gaalada ahaa. dagaalkaasi ayuuna ku shahiiday Camar ibnu Jaabir. wuxuu ka mid ahaa Camar ibnu Jaabir 9 jinni ee dhegaystay qur'aanka. waxayna rumeeyeen 9kaasi nebi Muxamed naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee. wuxuuna ilaahay ku xusay qisadooda suuratul-jin. allaahu aclam. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا